guddida gacanta ku haysa dugsiga dhagolayaasha magaalada Burco ayaa deeqdii kombiyuutarada ahayd ee soo gaarsiisay marwada koobaad ee qarankan Soomaaliland Marwo Aamina Maxamuud Jirde Aamina Waris ku wareejiyay carruurta dhagolayaasha ah ee wax ka barta dugsigan Cabdo Aayere munaasabad kooban oo lagu qabtay dugsigaasi ayaa waxa ka hadlay guddiga dugsigan oo horkacayo xildhibaan Muwarig Yuusuf Cilmi oo ahayd 26 iyo afartii hore ay bixisay laba gabdhood halkan baanu doonaynaa inaan insha Allah guddi ahaan bay noo wakiilatay inaanu maartay maadaama waqtigu yara inaanu anaguna aanu maartay intii ay ka tagtay inaanu ciddii ay ugu tala gashay inaanu siino anagoo ka mas'uula marwada koowaad ee qaranka Marwo Aamina Waris intaasaan halkan isugu nimi waan uga mahadnaqaynaa haddaan nahay guddida ilaahay waxaanu ka baranaynaa in ilaahay ka abaal mariyo iskuulku waa iskuul ay gacanta ku hayaan bayagu haday yihiin haday madaxweynaha tahay haday marwada tahay haday wasiirada tahay haday xukuumaddan joogto tahay tacaala mahadnaq mudan iyadana marwada madaxweynaha oo alaabtan in hortaala guddoonsiisay aqoon-yahanada yaryar ee soo kacay run ahaantii aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxa mudan oo runtii bulshada aanu ku baraarujinayaa Soomaaliland marwadu waxa ardaydan aanu gudbinay codsi ah in la baro skillska taageerada aad u muujisay dhagolayaasha waxaan ku waa mid ku taala kotonka sanadood ee dambe tacabkoodu way u haya Aamina Maxamuud Jirde Aamina Waris marwada madaxweynaha iyo madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Axmed Maxamuud Silaayo labadooda wax naga mudayn sharaf aad iyo aad u wanaagsan marka xigta alaabtan aad noo keenteen aad anaga ubadkayga u keenteen aad u soo qaadeen waan idinka mahad celinaynaa 100% xubno kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsigan ayaa ka dareen celiyay deeqdan ay marwadu soo gaarsiisay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle ayaa isaguna sheegay in lama huraan tahay dhiirigelinta da'yartan dhagolayaasha waxaana uga mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland marwadiisa iyo wasiirka madaxtooyada taageerada ay la barbar taagan yihiin dugsigan maanta marxaladda uu marayana waa aragtaan halkaa waxa soo gaarsiiyay waa madaxweynaha marwada iyo wasiirka madaxtooyada iyo barasaabkii fikirka lahaa Cabdo Aayere oo aan aniguna ku taageeray runtii waa mashruuca ugu qiimaha badan leh ay ummad ama deegaan ama gobol ama qaran u hirgala geesta kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay safarkii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo soo dhaweymihii qiimaha lahaa ee lagu qaabilayay deegaan iyo degmo kasta oo ku tilmaamay inay bulshadu ka abaalgudayso wax qabadka ballaaran ee xukuumaddu ka hirgelisay cidhif ilaa cidhif mudana madaxweyne soo dhaweynta lagu soo dhaweeyay adiga waftigaagu abaal celin bay wixii qaranka u qabatay taasaan anaguna runtii hambalyeynaa ku taageeraynaa waxay gacmo daaleen ilaa from ceeri gaabo ilaa iyo berberu maanta jooga yoom jadiid waa mashruuc cusub la furaya Absaaq Farax Cabdillaahi TV qaranka Soomaaliland Burco.